waxaynu sii dhawaanaynaa bishii ramadaan dhammaadkeedii ilaahayna waxaynu baryaynaa in badan siduu inoo waafajiyo qiyaamkeeda inuu aqbalkeedana ilaahay inoo waafajiyo 7 arrimood oo kooban baan baraarujin lahaa ta u horeysaa waxa weeye ramadaan geediga ay gashay iyo degdegeedaasi waa inuu ina xusuusiyo safarka aakhiro waa raxiil yudakiruna raxiil waa safar iyo socdaal aynu soo galay ayaama kooban oo sariica marka safarkii aakhiro inuu sidaa inoogu soo dhaqsanayo waa inaynu ku baraarugnaa ilaahay baa wuxuu yuqallibu allaahu alleyla waannahaar ina fii dalika lacibratan liuli labsaar isbeddelkaa habeenkiiyo maalinka uu marayo cashar iyo cibra ugu sugan dadka caqliga leh aragtida dheer waxaad ogaanaysaa waaxaheeniyo qayb ay tegaysa inuu yahay maadaama waqtigu yahay xayaatadii iyo noloshii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayulmu'miniina akyas yaa ugu fariidsan dadka mu'miniinta ah dadku fariidnimun bay sheegaane yaa ugu fariidsan markaa nebigu waxau ihi akharuhum lilmowt waa qofka geerida in badan xusuusta ama sheega waayo markuu qofku xusuusan yahay shaygan wuu u diyaargaroobaa hadduu ilaawana qaflad baa lagu qabtaa wa axsanuhum lima bacda almowti isticdaada waxa geerida ka dambeeyana waxbuu usii diyaarsadaa sahay wanaagsan nin baa u yimi asxaabigii abidar la odhanayay oo zaahid ahaa oo dadka adduunyada iska yaraysta ahaa faqallaba basarahu fii beyti gurigii abudar buu kor iyo hoos u eegay wuxuu arkay inuu u egyahay guri laga guuray ama imika la soo degayo u xalaabayaani ol abidar waa asxaabigii jaliilka ah waxa uu ku yidhi ayna mataacuk alaabtii gurigu meeday ile meel haddii la degayo had iyo jeer waa la qalabeeya ama wixii la helayo unbaa la dhigaa wuxuu yidhi guri baanu leenahay kan ka wanaagsanoo aanu u sii guuraynaa wuxuu yidhi laakiin dee intaad kaa gaadhaysa waxaad dee isticmaashaababaad u baahantay waxau yidhi ina saaxiba albeyti laa yadacunaa fiih ayaa waxaan kuu sheegayaa gurigan cidda iska leh ayaan noo daynaynba ilaahay buu jeeda subxaana wa tacaala maxaan alaab dhigaa buu dabadaa layga wadaa guriga alaabta wanaagsane ay taaluu sheegayaana waa ka jannada marka gurigii jannadaa noo qalabaysan buu leeyahay kanna ilaahay lahaa baan nagu daynaynin meel nalaga kaxaynayo maxaan iskaga mashquulin oo nalaab dhigi doonaa buuli sidaasay ahayd aragtida asxaabta ridwaanullaahi calayhim arrinta labaad aynu baraarujin lahay waxa weeyaan inaynu iska ilaalino tacab khasaarka waa nasiib darro qofku inuu camal wanaagsan oo fara badan iyo cibaado ku dadaalo bisha ramadaan markay ramadaan baxdana dib u noqdo taa qur-aanku isagoo inooga digaya tacab khasaarka iyo dib u noqoshada tusaalayaal buu keenaa waxaa ka mid a tusaalaha suuratu naxli ku sugan ilaahay wuxuu walaa takuunuu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaafa hala mid noqonina ruuxii dumarka ahayde gelinka horena xadhigga soo haysta gelinka dambena furfuraysa maskaxda wax uga dhinaayeen waa qofkii oo intuu hore u socday dib u socod noqday ruuxa dumar hala mid noqonina wixiina ha burburinina baa ilaahay u leeyahy subxaana wa tacaala mar kalena tusaale wuxuu inagu siiyey nin reer banu israa'iil ka mid ahaa markaasaa ilaahay waxau ihi watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alqaawiin waxaad dadka ku dul akhridaay oo aada u sheegtay adoo uga digayo tacab khasaarka kii aan waxyiga siiyey qur-aanka waxyi baan siiyey kitaabkii towraad reer banu israa'iil culimadoodii buu ka mid ahaa uu ka dhex siibtay baa ilahay wi waa ninka ay u yaqaanaan culamaadu tafsiir balcam ibnu baacura dadkii ka ag dhawaabu ahaa nebi muuse calayhi salaam markaa reer madyan buu u diray si uu isagoo ku kalsoon si uu dacwadda u gaadhsiiyo in badan bay hadalkii ku celceliyeenoo waxay dhahaan muuse o adigan ka ag dhawo muxuu ku siiyaa waxba buu dhe ilaahay daraaddii baa ku shaqeeyaa ilaahay daraaddii iskaga kaalayo annaga adduunyo kuu buurbuurayna annaga nagu soo hadhona raac bay idhaah wuu iska qaatay sidii wadaadada reer banu israa'iil dhaqanka u ahayd waa ridoobay markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkaa uu ku soo dejiyey tusaalena waxay u tahay
cid kasta oo diintii ilaahay uu siiyey iyo camalkii iyo cibaadadii uu kordhiyey dib uga noqda arrinta saddexaad aan baraarujin lahaa waxa weeye laabudda min alghayrati cala almaxaarim shucladaa iyo laambadaa iimaanka inoo xoogaystay inoo baxay waa inaanu inaga naaqusin qofka marka iimaankiisu kordho waxyaabaha astaanta waxa ka mid ah inuu xaaraanta diida iyo xumaanta oo uu ka dhiidhiyo ila ilaahay daraaddii buu u diidayaa waxaynu aragnaa had iyo jeer gafaf aad u badan oo ayaamaha farxadda lagu kaco oo dadku waxaad mooddaa inay u qaateen farxadda in xaaraantana lagu farxayo mukhaalafaad badan oo sharci ah ayaa yimaada oo markii hore dadku ay ramadaan iska ilaalinayeen ood moodo in xadhig laga furay arrintaana waa inaynu aada uga feejignaana ehelkeenna ka imanaysa ee ubadkeenna ka imanaysa ee asxaabteenna iyo ummaddeenna ka imanaysa qof waliba kaalintiisa waa inuu qaato qof waliba waa daaci dadku wuxuuna yidhahdaan wadaadadu waxan may ka hadlaan aduu maad ka wadaad noqotidaad ka hadashid miyaan ilaahay ku weydiinayn miyaanad caqli iyo cilmi lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda markuu la hadlaya wuxuu uhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbi man buu leeyahy qof kasta oo ummadda ka mida xumaan arkaa saddexdaa derajo ku karaya ha ku bedelo waa gacantii waa qowlkii waa qalbigii marka qof waliba kaalin buu leeyahay saa daraaddeed baa cidda aad ka bilaabaysa inaad munkarkii iyo xaaraantii iyo xumaanta ka ilaalisa waa ehelkaaga ubadkaaga ooryahaaga isqaawinta ikhtilaadka ceebaha xaaraanta waxaasoo dhan iyagaad ka ilaalinaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi laa yadkhulu ljannata dayuuth qof dayuutha waa xasan xadiidku dayuuthku waa qofka ehelkiisa kala raalliga ah xaaraanta iyo xumaanta ee aan diidin jannada ma gala buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa afraad aynu isxusuusin lahayn an natadakara fi hadihi alayaam الضعفاء خاصة الأيتام والمعوقين dadka ducafada ah inay inala farxaan oo farxaddu keligeen aanay inagu egaanin agoomaha iyo dadka ducafada ah oo had iyo jeer loo naxariistana ilaahay cawil buu kugu siiyaa qur-aanku wuxuu ina barayaa nebi ambiyada ka mida ubad u baahday oo aan isaga iyo ooridiisa midna dhalin isda gaboobay ooriduna ma dhalaysay ahayd waa nebi zakariya calayhi salaam ilaahay buu walad weydiistay ilaahayna wuu aqbalay sababna wuxuu uga dhigay maryam oo agoon ahayd inuu koriyo culimmadu waxa ay leeyihiin agoon oo la koriyaa waxay sabab u noqon kartaa inaad dhali karto wakafalahaa zakariyu ilaahay dusha u saaray oo uhi kori haddaad ubad doonayso dadka ubadkooda u naxariiso kori marka waa laga yaabaa dhakhaatiirta dhalmada iyo beeridda iyo waxa inaad ku warwareegtee bal halkana ka bilow waxyigaa sidaa ayna barayaan ilaahayna zakariya wuxuu siiyey yaxyaa uu soo magac bixiyey marka waa daa yar oo aabbahay meebay leeyihin markay arkaan ubadkii kale oo aabbahood wado waxaa laga yaabaa inay qofka la socda yidhaahdaan aniga aabbahay mee jawaabba uu waaye markaa mana fahmayo aabbaha wuu dhintay iyo wuu ku tuuray iyo waxyaabaha ma fahmayo markaa qofku waa inuu qayb qaataa dadkaasoo wixii uu ku tari kara uu ku taraa dadka mucaawiqiintana waxaynu uga jeednaa curyaamiinta iyo dadka maskaxda ka xanuunsanaya iyo dadka duruuftu ay hayso cidda gacanta ku haysa un inaan lagu eegin qof waliba wixii bajad u baasgarayn karo uu siiyo waxaa sidoo kale iyadana aynu inala farxayo aynu ku dadaalaynaa dadka abaaraysan ee duruufta iyo dhibaatadu ay haystaan ee meel walba jooga wixii aynu ka qayb qaadan karno waxaa shanaad oon baraarujin lahaa sakaatu fidriga waajibka ramadaan inoo soo raaca ee waxaan kalaynu wadno oo dhan salaatuleylka iyo taraawiixda iyo ciidda iyo intaba siba waa sunne ka miisaan badan dadkuna laga yaabo inay ilaawaan waa zakaatu fidriga farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidr zakaat fidrigu faral ka dhigay buu leeyahy cabdillaahi bni cumar xadiidkii saxiixa waa faralka labaad ee arkaanu islaamka inoo soo raaca waa zakadii jidhka sida xooluhu saka u leeyihiin waa zakaatulbadan sakadan jidhka ku nadiifinayna wey marka iyadana inaan la ilaawin ee qofku uu ku dadaalo axkaamteeda inuu barto
oo cajalada qaadan kartaa culimadu ay ka duubeenoo cilmiga sakaad fidriga oo dhammi uu ku dhan yahay mimari yar baad qaadan kartaa si fiican aad u baran kartaa wixii kuu bannaan iyo wixii lagu diiday iyo waxa afdalka ah markaa taasina cilmigaasi waa cilmulxaal xaaladda imika taagan cilmigii waajibka ahaa wey qaladaadkaynu gallay ka mid tahay qof meel dheer jooga in lala sugo sidaana ciiddii ay ku baxdo camalkaasi wakhtigiisii u dhaafo kadibna qallo uu noqdo qof qallo ku dhacayna uu dambaabay marka waxaa muhiima qofka meel durugsan joogaa dad kugu dhow intuu soo wakiisho inaad ugu dhiibto adigu taada ka fudhiyeel intaad dadka kale eegayso jannooyinka taada u horaysa cadaabka la iska eegayana kaaga ugu horeeya camalka afdalka loo eegayana kaaga kow ka ah ka soo haleeli waayana dee ku baahan baa ku ag jooga si laakiin telefoon waxba laguma gudoobo hebel baa abaaraysan magaalo kale uu jooga telefoon baan ugu sheegay wuu u yaalaa la isma qanciya arrimaha diinta ee culimada iyo aqoonta dadka wali baa la weydiiyaa si camalku kaaga ansaxo ilaahay baa inoo bushaareeyay wuxuu yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa man tazakkaa waxaa la yidhahnay qofka sakaatu fidrigii bixiyey wadakara sma rabbih rabbigii magaciisana xusay allahu akbartii ciidda akhriyey fasallaa kadibna salaaddii ciidda tukaday markaa camalkaasina yaan la ilaawinaha lagu dadaalo sida ugu quruxda badan in loola yimaado waxaa lixaadaynu baraarujin lahayn sida qur-aanku ina farayo waxyaabahaynu ku farxayno waxaa ka mida faral ilaahay uu inoo dhammaystiray sida ay dadku ugu farxaan marka ay dad kuu soo kordhaane xaasaad guursato ama caruuri kuu dhalato ayaad si ka badan ugu farxaysaa markuu arkaanu islaamka mid ka mid ah ilaahay kuu sahluu kuu hirgeliyo sidaa daraaddeed baa sadaqo farxaddaa ka turjumaysa ayaa islaamku inoo jideeyey xajkii markaynu gudannay dee waxaa la yidhaha udxiyo qala waa la farxayaa camalkan ramadaan markii aynu soo dhammayna arkaanu islaamka mid ka mid ah sakaad fidriga la bixinaya waa farxad sida marka aad ilma kuu dhashaba aad walqal u samayso marka oolida aad guursatona waliimadaad u samayso taasi waxay ka turjumaysaa farxadda diintu inay ka sii weyn tahay ta dunyada ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون حندونا يا أبا إلهي وريني الترادة لما يسام الله أكبر تنا أخردان إلهي إذن وافتشينا أمهاتنا غدان سبحانه وتعالى وحا تضبادا براروجين لها إنا ينبادين الدعاء وأيامها بيشو أي سيد أمانا يعيدها إيا مالمها مسلم كويس السامحة إلهي نو السامحة marka inagu saamaxaadana waa ku dadaalaynaa dhexdeena waana ducaynaynaa wax kastoo duruufo inaga iyo ummadda islaamka haysataba inuu ilaahay naga dulqaado ayaan ku ducaysanaynaa biyana gacmahaagaa laga dhargaabaa la yidhi qofka aan af carabiga iyo ducooyinka soo arooray hagaajinay dee af soomaaligiisu ilaahay ku baraya ila ilaahay baa baray af soomaaliga mana aha macnaheedu inaana ducayn karaynoo dadkun tidhaa inoo duceeya ee ilaahay qof walba isagoo la hadlaya waxa uu leeyahay udcuuni astajib lakum qof walba gaarkiisa weeye intood meel gasho waqtiyada qalbigu soo jeedo habeenka galinkiisa dambe salaadaha dabadooda waqtiyada cidqu min annaar la filayo ducada badi waxaynu weydiisanaynaa inuu ilaahay baryaynaa qabuulka dadkeennii saalixiinta ahaa waxay ku dadaali jireen camalkan inay xaqiijiyaan ay qurxiyaan ay ku xaragoodaan markuu u dhammaadana in badan ilaahay waxay baryi jireen inuu ka aqbalo wax damaanada uma hayna in la aqbalay bushaarooyin mooyaane dee daliil inoo sheegay adigaagan hebelah in camalkan laga aqbalayo miyaad haysaa ma hayno sidaa daraaddeed waxaynu isku daraynaa bayna alrajaa'i waalkhawf baynu ku noolnay cabsi aynu ka cabsanayno in nagu soo celiyo camalkan ilaa waxaanad ogeyn baa kasii noqon kara oo ciirciirka inagu badane iyo rajo aynu ka qabno ilaahay weynaa subxaanahu watacaala ee naxariista badnaa wuxuu ilahay yidhi waaladiina yuutuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun mu'miniinta isagoo ilaahay ammaanaya wuxuu uhi waa kuwa la yimaada wixii ay la imanayaan iyagoo qalbigooda cabsanayo faqiihaddii weynayd caalimadii xaaskii nebiga caaisha bintu sidiiq ayaa nebiga weydiisoo waxay tidhi dadkaasi ma kuwa waxada ee sinaystee macsiyada sameeyaa kuwa baqanaya maya buuhi
وكوا صومك إيا الصدقة اللي يمادي هدنا كبقى لقى أقبل وايو marka quruurku ma wanaagsana iyo isqancintu iyo anigu wadaad baanahay ama sheekh baanahay ama caabid baanahay inaad tiraahdo camalkaygu cirku jooga hore laga aqbalay ma filay kan waa la aqbalay iyo waa la inaga aqbalay shaydaanku meeluhu ku soo gabado way dadka kullu gooyo marka ilaahay oo aqbal baynu ku celcelinayna taana waynu badinaynaa waxana calaamad oo aqbalka qofku wadadii wanaagsanayd uu hayay bisha ramadaan inuu ka sii kordhiyo mooyaane inaanu dib uga soo noqon inna salaata tanha 'anil fahshaa'i wal munkar salaadu foolxumadii dambiga dadka u diidaa laakiin haddaad aragto qof islaba rogay oo xaaraantii ku laabtay oo kii horeba aan ahayn nooc kale u agaado shakhsiyad kale yeeshay hada yadullu ala adami qabuli amali waxay calaamad u tahay amalkiisina la aqbalin marka arrimaha dhowrka ah ayaynu baraarujin lahayn ilaahayna waa u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala waafajintaa uuna waafajiye aqbalkana waa weydiisanaynaa ducadana waa badinaynaa dabagoosigaa camalkana waynu ku dadaalaynaa